ولا للبرلمان إنه حنا أنسحيه وحنا ديده واجبات كيس الدستور كأول برلمان سيدي سنة وحكومة أنسحيه وحلا يراده كونسنسس لو ما دما برلمان وحكو أنسحيه مركي للدوضة دماته cod buu qaadaya hadii wixii lagu doodahay dadka diiday bataan qodobkaas waa la diiday waay hadii bataan ku aqbalayn waa ansax macnaha aan ku shaqeynaa waa sidaas laba koor ma jira mid 50 plus 1 hal od area la rabaa man saddex beelood laba inay aqbalaan waay wixii dastuur ku saabsan ama maaragtay madaxweyne arrimihiisa ku saabsan ama guddoonka ku saabsan tuuteed yaa lagu meel mariyaa saddex meelood laba inay aqbalaan waay ayadoo la tirinayo habad loo tirinayo ayaa lagu ansixiyay afartaas utub baarlamaanka macnaheedu ma aha afartaas hadduu ansixiyay inuu arrintii meesha uga haray ma aha waxaad ogtihiin walaalayaal qof kasto siyaasad danaynayay madaxweyne ha noqdo weli madaxweynayaasha ugu darnaa markii musharaxiinta ahaayeen amba maaragtay qof kasta oo yani wax taageerayba waxyaalaha ugu muhiimsan oo Soomaalida loo sheegay codka looga helay laba arrimood ugu muhiimsanaa qodobka koowaad wuxuu ahaa dastuurkan ku meel gaarkan ka saaray yani haddaan madaxweyne noqdo balka la doorto codka Soomaaliyeed kaas lagu helay qodobka labaad waxaa lagu helay shacab weynaha Soomaaliyeed oo doorashooyinka ku dhibtooday codka ayagan ku celinayna ayaga dadka soo dooranaya qofkii odanka dhigayna qodobka labaad uu kaas ahaa labadii aan u howlgalnay xukuumadda noo keentay xukuumadda wixii ay kaga saabsan dhinaceedii waajibaadkeedii iyo NCC markay ka soo gudbeen waa la noo keenay qaarna anigaaba si toos ah baarlamaanka maaragtay iska leh arrintii aydahayd oo dhan walaalayaal waa ku dhaqaagnay meel fiican ayaa la soo gaarsiiyey maanta oo u baahan inaan dhammaystirno waxaad ogtihiin walaalayaal صدق يدور سنة بربور كجرنا ما يجد دولة دو عالم كترسن بربور كان الجدال كان أنت بربورين حدنا الدور شوي سد حجر أفر جر دور زي قبضته مع إنه عالم كان كل يدنا ولا اليوم محامر تيدت كاس أجنبي أفريقيا كسوقات مثلا دولة اللي هذا تنقيش دولة بنت مدكالو رواندا كسوقات رواندا وحي اسكو سميس أنا واسكو مساميني لحظة كان عيباد أكتهم وهذا أفريقيا أنا قد مدى ولا علينا ما أنت نشرفت إدمارة الدولة نمدى الدنيا الدلحيسي وحلوي ماذا وفكي نقول إنها حرب ماشي أدو آلية إيد اسكو هاي ستنا مجرته وحي شلي لحظة ودانا وإسكعفين ندعك العالم كالفيريا دولة ولا علينا عربت نفسك ما يقبل برتي بادو أكتهم العراق در هذا أنا دلك وضع تجي ما أنت الدولة نمدى مارتي كلنا علونا مركا أركتيت واديا بيسا دور شيء قبل سدر واسع ضال أنا ما ولي إنه حنكون جرينا يعني هل ميل دعان ميل قد دقاقي كريم أو سأبيني كريم مركا حدانا مارتي أنا وأنكون ديرنين أو أنا ودت كير أنا أنحين أو أنا ولا تنمدى قدرينتي وحنا قد هي أو أنا وإسلام أولي بدت سومالي برك اللي يرادو لا بقى فاضي سومال مركا هي مادام قبل كي ما قرنيسه سومال كل واحد غلطي كل واحد سوء أكتاي إلا كل واحد ما قرنيسه أيضا نوع سوء أكتاي يرو مركا تبتيت قف سومالي كهري ماذا أنا سومالي صوت اللي ليه يقولي عادي قواركين كل واحد هذا الشيء محا أنا نجهر تاجن إن أنا دت كان إسامينو أن دور شقب سنو أن هوري أسعنو أن مارتي وأن أرجع جهزت إسكتينو ما أنت ولا لي المركب يعني أنا وحنا هاي فرصة داس إلهي وأنو جولي ميل في عنا سوق قرني وحكلا لو جولستي أرجع جهزت ما أنت هرت عقبت وين دلك الصومالية تال أنا وحنا وركيا يعني جاني جوين وأنا من كار أرجع جهزت مد وين ما تتاسوي أو سياسة ديسن أو ضد جدال كريحيان أو فكرة معها ويليش الصومالية معها وقاعدة جدال على جرا تاسو أن كأت كان هدان هلنو وحيالك كلا صومالي ما تعقبت أنو أركاي بجرتو عندي أنا أسيال يلينين مرك ولا ليال أرنتاس ويلب واحد ربطتك وحيامي سينين إن برلمانك قوام بالهين أو وحكومة السو قديس أو نسكن الحيان ولا هلا الماء وحبا يدي شيء وحنوك إنه حكومة مركي نوك ينسي waxaan noo keenay madaxweyne ku-xigeenka noo keenay waxay noo keeneen laba xisbi labada urur siyaasadeed ugu badato inay noqdaan xisbi qaran labada waa joojinay waxaan yiri madaxweyne Soomaaliya oo aan ognahay khilaafka sida uu fudud yahay haddii la isla doorto meel ma gaarayaan madaxweyne xisaaran ka dhigno waa ka bedelnay waa ka diinay baarlamaanka saas ku ansixiyay
waxaa kale la diiday laba xisb haday noqoto dalkan iska dhaban hadii labada barnaamij noqdaan waa u fadhiisanay dad khubraa anagoo baarlamaanka dhexdiisa hadii labada barnaamij noqdaan ma hadana doorashan aadayna waxa la yiri xisb saddexda lagu daro hadii laba barnaamij noqdaan labadood mid hal mid oo si yani dowladii u ansaxdo labadii isku biirta u noqdaan dowladda u saaran baarlamaanka sameeyay walaalayaal macnaha baarlamaanka macnihiis in macna taramaha baarlamaanka waa dad xisaabtamo dad dalka ka damqado aqoonyahan ah runtii aan isleeyahay guulo la taaban karay gaareen waxa kale guulaha la gaaray kamid ah walaalayaal waad ogtihiin dalkeeni una qabateen ku xabsitay la dhaqaajin waaya yaalay waxaa jiray deemo badan oo lagu leeyahay ilaa ku meel gaarka laga baxay markasta caalamku waa noo soo bandhigay sida yeela xukuumaddu isku dayday baarlamaan waa la keenay waa la dhaqaajin waayay sidii ay baarlamaankii 12aad waxa ilaahay nagu guuleeyay oo alxamdulillah ugu shukriyeynaa in maaragtay labada aqal intay tashadeen xukuumadii ma soo gudbisay dawladii fadhifulada ma ka gudubtay arintan ay caqabad nagu noqonin kullu loo bareeray maanta dalkii deyntii laga cafiyay yaani oo naqabadeed laga qaaday dawlad dhameystir anahay maanta aan xurnahay waa guulo la gaaray oo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dawladda maanta jirta guul ay soo haysay waa